بسم الله الرحمن الرحيم جمعة وناكسن واللبية طبانك بشا سبتمبر سنة كاللبكن لباتن يشان أو كوباغن لباتنك بشا ربيع الأول سنة كن أفر بغلا فرتنية تضبا تاريخ ده هجرية كسو دوادا مركله إيا برامجكي حولشدا وراركا قضبدا آن إذي كوباها إننا وحا كمدا. These consequences are not merely coincidence. Israel's systematic expansion of the conflict zone from Gaza to Lebanon, then to Iran, Syria, Yemen, and now Qatar, is a deliberate strategy. وصوماليا oo xalay wacdara ka dhigtay fadhigii golaha ammaanka ee qaramada midoobay isla markaasna si ba'an ugu qaadqaaday Israa'iil golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo xalay si weyn loogu cambaareeyay weerarka Israa'iil ay ku qaaday Qatar laakiin maxay tahay arrinta walaaca leh ee laga dareemay kulankaasi faahfaahin ayaan idin haynaa wakiilka Israa'iil ayaa isaguna si toos ah golaha dhexdiisa wuxuu ugu hanjabay Qatar isagoo cadeeyay inaysan ka labalabayn doonin in mar kale weerar caynkaasi ay ku qaadaan meel walbo ay ku sugan yihiin mas'uuliyadda Xamaas oo qadarna ay ku jirto ammaanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aad loo adkeeyay haddaba sidee wax u jiraan maxaa soo siyaaday warbixin cajiib ah oo arrintan ku saabsan ayaan idin haynaa hogaamiyaha xuutiyiinta oo jeediyay hadal culus oo ku aadan dagaalka ay kula jiraan Israa'iil iyo waliba weerarkii Netanyahu uu ku qaaday Qatar Iiraanna si la yaab leh ayay uga hadashay halka uu ku dambeeyo nuclearkii ay bacriminaysay Netanyahu oo si ba'an weerar afka ugu qaaday Spain isagoo sheegay in ay doonayso in ay burburiso Israa'iil Jarmalkuna wuxuu ku dhawaaqay inuu qaadayo tilaabo Israa'iil ay aad uga carootay dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah soo dhawaada marka la daawadaya si aad ula socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa nuclearka Iiraan gaar ahaan hadal la yaab leh oo ka soo yeeray dowladda waddanka Iiraan oo la xiriira halkii uu ku dambeeyay nuclearkii ay bacrimisay haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Abbas Araghchi ayaa daboolka ka qaaday in kaydkii uraniumkii la bacrimiyay ee dalkiisa uu ku hoos jiro burburka kadib markii la duqeeyay xarumihii nuclearka Araghchi ayaa waraysi la yeeshay wuxuu ku yiri dhammaan agabkayagii wuxuu ku hoos jiraa burburka xarumaha la duqeeyay isagoo ku nuuxnuuxsaday in hay'adda tamarta nuclearka ee Iiraan magaceeda loo soo gaabiyo AEOI ay samaynayso qiimeyn ku saabsan xaaladda iyo helitaanka agabka si ay warbixin ugu gudbiso golaha sare ee ammaanka qaranka ee Jamhuuriyadda Islaamiga waxa kale oo carabka ku adkeeyay in golahaasi uu go'aamin doono nooca jawaabta laga bixin doono tillaabooyinka dalalka Yurub ee kala ah Britain, Jarmalka iyo Faransiiska wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyay in iskaashiga dalkiisa uu leeyahay hay'adda IAEA uu socon doono isla markaasna uusan ku xirnayn mowqifka saddexdaasi dal ee reer Yurub arrintani waxay timid iyadoo wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi iyo agaasimaha guud ee hay'adda IAEA Rafael Grossi ay ku kulmeen magaalada Qaahira maalmo ka hor si ay heshiis uga gaaraan xarumaha nuclearka Iiraan iyo iskaashiga u dhaxeeya Tehran iyo hay'adda Araghchi wuxuu xaqiijiyay Arbacadii in gelitaanka kormeerayaasha IAEA ee xarumaha nuclearka dalkiisa la xadidi doono inkastoo heshiis lagu gaaray Masar wuxuu kaloo sidoo ku nuuxnuuxsaday in Tehran aysan ogolaan doonin kormeerayaasha IAEA inay galaan meel kasta marka laga reebo warshadda tamarta nuclearka ee Bushehr ee koonfurta dalka sida ay sheegtay
wakaaladda wararka IRNA ee Iiraan laga leeyahay 28 bishii August saddexda wadan ee reer Yurub ee kala Faransiiska, Jarmalka iyo Britain ayaa waxay bilaabeen qorshe muddo 30 maalmood ah loogu soo celinayo cunaqabataynta Iiraan haddii Tehran aysan dib u bilaabin iskaashigeeda buuxa ee ay la samaynayso hay'adda IAEA oo ay ku jirto hawsha kormeerka hay'adda. Toddobaadkii hore IAEA waxay xaqiijisay isla markaasna ay muujisay in ay ka xun tahay go'aanka Iiraan ee ah in ay joojinayso iskaashiga kadib dagaalkii Israa'iil, iyadoo xustay in Tehran ay dardar gelisay wax soo saarka uraniumka si loo kobciyo ka hor weerarka Israa'iil. Wakaaladdu waxa ay sheegtay in kaydka uraniumka uu ahaa 60% in la kobciyey wixii ka horreeyey 13 Juun, isagoo gaaray 440.9 kilogram. waxaana la sheegayaa in loogu talagalay in uu ahaado 3.67 waxaana lagu soo horamayaa in uu ahaa 17 May 32.2 kilogram. sida ay sheegtay hay'adda, Iiraan waa dalka kaliya ee aan haysan nuclear oo dunida kobciya uranium heerka ilaa 60%, kaasi oo ku dhow 90%, kaasi oo markaa laga samayn karo madaafiic ama madaxyada nuclearka haddii uu dhaafo xadkaasi. waxaana lagu soo waramayaa in horay heshiisku uu ahaa 2015 in Iiraan aysan dhaafin 3.67% heerka bacriminta uraniumkeeda. laakiin madaxweynaha Mareykanka ayaa 2018 madaxweynaadkiisii hore waxaa Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi, isagoo xilligaasna Iiraan ku soo rogay cunaqabatayn aad u ba'an. ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay hay'adda IAEA oo ku aadan warkan ka soo yeeray Iiraan oo sheegaya in uraniumkii ay bacrimisay gebi ahaantiisba uu ku hoos jiro burburka goobihii la duqeeyey. waa tahay markana aynu eegno dhanka Yaman, hogaamiyaha Xuutiyiinta Cabdibaarig al-Xuuti ayaa habeennimadii xalay wuxuu jeediyey khudbad adag oo uu ku soo hadal qaaday weerarkii Israa'iil ay ku qaaday dalkaasi Qatar iyo sidoo kale dagaalka ba'an ee u dhaxeeya kooxdiisa iyo weliba Israa'iil. khudbadan ayaa waxa uu kaga hadlay hawlgalladii ugu dambeeyey iyo weeraradii ugu dambeeyey ee Israa'iil ay ka waday dalka Yaman iyo weliba Mareyka Gaza, waxaana uu xaqiijiyey in Yaman si rasmi ah iyo si shacbi ah ay ugu jirto mowqif daacad ah oo ay ku jirto dagaal culus oo ku aadan in la ilaaliyo sharafta, qiimaha nafoorinimada oo la bixinayo. wuxuu carabka ku adkeeyey in gardarrada Israa'iil iyo dembiyada ay geysanayso aysan wax saameyna ku yeelin doonin shacabka Yaman oo ku aadan jabinta doonistooda, balse ay kordhin doonto xooggooda, adkaysigooda iyo go'aankooda. al-Xuuti wuxuu xusay in aanay jirin wax doorasho ah ama isdhiibid iyo aqbalidda xeerka madax foolorinta sida qaar ka mid ah dalalka gobolku ay u aqbaleen. waxa ugu baaqay shacabka Yaman in maanta oo Jimcaha ay isugu soo baxaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Sanaa. hogaamiyaha Ansaarullah waxa uu tilmaamay in ficilada iyo xasuuqa Israa'iil ay ka geysanayso Falastiin ay yihiin dembiyadii qarniga, waxaana uu xusay in warbaahintu ay aad u hadal hayso dhibaatada iyo faalxumada arrintaasi ku aadan. wuxuu sheegay in qof walba uu arkayo sida Israa'iil ay u wado dembiyada gaajada lagu hayo 2 milyan oo qof oo ku nool Mareyka Gaza, taas oo yiri waa dembi aad u faalxun. al-Xuuti waxa uu xusay in Israa'iil ay leedahay ujeedooyin joogto ah, isla markaasna dalalka deriska ujeedooyinkaas ay ka leedahay sida Lubnaan iyo Syria. waxa kale oo uu sheegay in ay damacsan tahay shirqoolo ka dhan ah Urdun, Masar iyo Ciraaq. maruu ka hadlayay Syria, al-Xuuti wuxuu yiri waxaynu aragnaa gardarrada joogtada ah ee Israa'iil ay ku hayso dhulka Syria. wuxuu yiri waa cashar weyn oo loogu talagalay carabta oo dhan iyo dhammaan kuwa leh aragti ka duwan fikradaha halganka. al-Xuuti waxa kale oo ka hadlay weerarka Israa'iil ay ku qaaday Qatar. wuxuu carabka ku adkeeyey in Israa'iil ay doonayso inay isku ballaariso gobolka, isla markaasna aysan tixgelinayn xuquuqda dalalka carabta, madax banaanidooda
isla markaasna aysan u hayn wax tixgelina hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa Ansaarullah wuxuu muujiyay taageero uu hayo Qatar iyo weliba wafdiga wada xaajoodka ee ka socda dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ee Xamaas oo Israa'iil ay ku weerartay magaalada Doha waxa intaasi ku daray in gardarrada Qatar ka dhanka ah ay tahay xadgudub ku wajahan sharafta dhammaan dalalka qaliijka balse mowqifku wuxuu yiri qaar ka mid ah dalalka qaliijka ayaan gaarin buu yiri heer ugu yaran xitaa xiriirkii diblomaasiyadda ay u jaraan Israa'iil hogaamiyaha Ansaarullah ayaa waxa uu ku eedeeyay Mareykanka wasiirada ku yiri inuu raalli uga yahay Israa'iil dulmiga cadaalad darrada iyo gardarrada ay wado wahagaag bal markan aynu eegno xaggaas iyo Mareykanka ammaanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu soo waramayaa in si weyn loo adkeeyay arrintani waxay ka dambeysay kadib markii la toogtay nin u dhaqaaqa arrimaha garabka midig oo aad u taageeri jiray madaxweyne Trump oo lagu magacaabo Charlie Kirk kaas oo ka qayb galayay munaasabad ka dhacaysay gobolka Utah ee galbeedka waddanka Mareykanka wargeyska The Wall Street Journal ayaa waxa uu xalay daabacay in saraakiisha amniga Trump ay go'aansadeen inay adkeeyaan amniga madaxweynaha kadib geeridii Kirk isla markaasna ay eegi doonaan qorshayaal ballaaran oo lagu xoojinayo amniga Trump marka la eego sugidda amniga munaasabadaha toddobaadkan uu ka qayb galayo wargeysku waxa uu xusay in kooxda amnigu ay go'aansatay inay qaado tillaabooyin dheeraad ah xilli Trump uu ka qayb qaadanayay daawashada ciyaar kubadda kolayga ah oo ka dhacaysay magaalada New York waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa go'aansatay in xuska weeraradii 11 September ee 2001 loo raro goob amni ah oo ilaalin badan Charlie Kirk ayaa lagu dilay rasaas kaga dhacday qoorta xilli su'aalaha uu ka jawaabayay waxaana la sheegayaa in goobtaasi ay ku sugnaayeen ilaa iyo 3,000 oo qof FBI-da iyo saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in qof la tuhunsan yahay muuqaalkiisa la faafiyay isla markaasna ay baadi goobayso laanta sirdoonka ee FBI-da waagaag waynu arki doonaa wixii ku soo kordha wararkaasi goordha waxaan u gudbaynaa xalay maxaa ka dhacay golaha ammaanka ee qaramada midoobay khudbad halkaasi uu ka jeediyey safiirka Soomaaliya oo si adag ugu qaadqaaday Israa'iil ayaynu eegi doonaa Israa'iil laftigeedana golaha ammaanka dhexdiisa ayay wax uga hanjabtay Qatar iyo waliba wadamada martigeliya ururka Xamaas intaanu idin soo gudbin wararkaas iyo qodobo kale aan ku hakanno qadar xayisiina xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay qiimo dhimis weyn ku samaysay adeegga ultrasound scanka iyadoo qiimihiisa laga dhigay 150 pound oo kaliya halkii uu ka ahaa markii hore 240 pound waxaa sidoo kale xarunta ka howlgala Dr. Akan Efe oo ah dhakhtar rugcadaa ah kana soo shaqaynayay hawlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano Dr. Akan Efe wuxuu xarunta ka howlgalaa maalinta Arbacada usbuuc kasta wixii faahfaahin ah oo intaa dheer kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada ee shaashada kaaga muuqda ku soo dhawow Qari Online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka Quraanka Kariimka higaada iyo asaasiyaadka diinta Islaamka iyadoo ardaygu uu helayo hal week oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin macallimiintu waa khuburo macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrada waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo Qari Online haddaba si aad uga faa'iidaysato casharrada Qari Online la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo toos idin kaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka Facebook-ka Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar faclooyin iyo macluumaadyo kale waxaad kala socon kartaan bogga internetka ayna ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka wahagaag waanu imaan doonaa golaha ammaanka iyo xalay wixii ka dhacay laakiin markan waxaynu eegaynaa Jarmalka wuxuu ka mid ahaa wadamada sida weyn xabadka u garaacayay difaaca Israa'iil laakiin saacadihii la soo dhaafay war culus ayaa ka soo yeeray Jarmalka
kaasi oo ku aadan aqoonsiga dowlad Falastiiniintu ay yeeshaan. Haddaba wakaaladda wararka Jarmalka laga leeyahay ee DW ayaa waxay sheegaysaa in dowladda Jarmalku ay go'aansatay in ay taageerto hindisaha ay hogaaminayaan Faransiiska ee ku saabsan xalka laba dowladood. Shabakadda Bloomberg oo soo xiganaysa ilo xogogal ah ayaa waxa iyana ay sheegtay in dowladda Jarmalku go'aankan ay qaadatay kaasi oo ay sheegtay in uu yahay xalka laba dowladood. Jarmalku waxa uu taageeri doonaa qaraarka qaramada midoobay jimcaha ay soo saari doonaan ee la xiriira in markaa la taageero qorshaha ay hogaaminayaan Faransiiska iyo Sacuudiga ee shirka New York. Baaqa Jarmalka ee taageerada u muujinaya in la dhiso dowlad Falastiiniya ayaa sidoo kale waxa uu siinayaa xuquuq ku soo noqoshada dadka Falastiiniinta ee qaxootiga ah dhulkooda. Si kastaba ahaatee Jarmalku waqtigan ma u qorshaysna ayaa la leeyahay in isaguna uu aqoonsado dowlad Falastiiniya, laakiin wuxuu taageerayaa qorshaha Faransiiska ee dowlad Falastiiniyiinta ah in la dhiso. Wahagaag Spain iyo Israel muddooyinkan si adag ayay uga dhex tolnayn. Shalay ra'iisul wasaaraha waddankaasi Spain Pedro Sanchez ayaa waxa uu ku dhawaaqay tillaabooyin adag oo ka dhan ah Israel, laakiin xalay Netanyahu ayaa wuxuu qaatay mikrofoonka isagoo si adagna u cambaareynaya Spain. Aynu eegno war armurta la xiriira. Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa weerar afkaha ku qaaday dhigiisa Spain Pedro Sanchez isagoo ku eedeeyay in uu sameeyay hanjabaad xasuuq oo ka dhan ah Israel kadib markii Sanchez uu ku dhawaaqay tillaabooyin cunaqabateyn ah oo lagu beegsanaya Israel sabab la xiriira dagaalka ay ka wada Mareykanka Gaza. Qoraal uu ku faafiyay baraha bulshada ayaa Netanyahu waxa uu sheegay in hadallada Sanchez uu ka sheegay in dalkiisa uusan haysan bambaanooyin nuclear ah, markab iyo dagaal oo waaweyn ama khayraad batrool oo ballaaran, laakiin haddana uusan ka aamusi doonin ficilada Israel intaasi u dhiganto hanjabaad cad oo ka dhan ah Israel. Waxa muuqata buu leeyahay in Spain aysan markaasi cashar ka qaadan dhibaatadii ay u geysatay dadka Yuhuudda, masaafiriinta Yuhuudda iyo xasuuqii naasiyiintu ay geysteen. Wuxuuna yiri markaa Sanchez arrintaasi kama fiirsan. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Israel Gideon Saar ayaa isna weerar afkaha ku qaaday dowladda Spain isagoo ku eedeynaya inaysan lahayn oo sida dalka u dhigaya wacyi taariikhi ah oo ku saabsan waxa ugu yeeray dembiyadii Spain ay ka gashay dadka Yuhuudda. Arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo xukuumadda Madrid ay ku dhawaaqday cunaqabateyn cusub oo ka dhan ah Israel, waxaana ka mid ah mamnuucidda guud ee dhoofinta hubka loo dhoofiya Israel, in diyaaradaha iyo maraakiibta lala xiriirinaya ciidanka Israel aan loo ogolaan in ay soo galaan hawada iyo xeebaha iyo dekedaha waddanka Spain, in la mamnuuco alaabaha ka yimaada deegaanada Israel xoogga ku haysata ee Falastiiniyiinta, iyo kordhinta dhaqaalaha loo qoondeeyay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka qaxootiga Falastiiniyiinta ee u raba. Cunaqabateyntan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in markaa si weyn ay u saameyn doonto Israel. oo hagaag haatan waxaynu u gudbaynaa xalay wixii ka dhacay golaha maaka ee qaramada midoobay, halkaasi oo si weyn Israel loogu qaadqaaday. intaanan idin soo gudbin safiirka Soomaaliya oo jeediyey khudbad adag oo aad loola yaabay isla markaasna Israel indhaha ay taagtaagtay, waxaan ku hormaraynaa fadhigan iyo siduu ku yimid. Fadhigan wuxuu ku yimid dalab ay dalbatay dowladda waddanka Algeria, waxaana taageeray Pakistan iyo Soomaaliya. kadibna Faransiiska iyo Britain ayaa waxay soo gudbiyeen qodobada ugu muhiimsan ee looga hadlayo fadhigan. waxaana fadhigan uu ahaa mid dowladda Qatar weerarkii lagu qaaday oo Israel ay qaaday si weyn looga hadlayay. Marka intii khudbaduhu aysan bilaaban ayaa waxaa soo baxay warmurtiyeed ama qaraar. qaraarka marka laba arrimood oo yaab lah ayuu watay. qodobka koowaad 15 wadan ee xubnaha ka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ka kooban 5 wadan ee golaha rigliga ah iyo 10 aan rigliga ahayn, intuba waxay isku raaceen cambaareynta weerarkii lagu qaaday waddanka Qatar. waxaana khubaradu ay sheegaysaa inay tahay markii ugu horeysay oo cidna aysan ka aamusin
ama cidna aysan adeegsan codka diidmada qayaxan oo hal mar la isku raaco war la soo saarayo laakiin warku ma aha warkii loo baahnaa dadka arrimahan ay ka faallooda marka arrimaha diblomaasiyadda isla markaasna la socda xaaladan meelo kale wax ka eegaan ma ahan oo keliya in la cabaareeyey weerarka laakiin warmurtiyeedkii soo baxay Israa'iil laguma xusin waxaan daawanayay xalay nin khabiir ah oo ka mid ah dadka arrimahan ay ka faallooda ayaa la wareysanaya marka wuxuu yiri waxaa lagu qoray warmurtiyeedka waxaa la cambaaraynayaa weerarka lagu qaaday waddanka Qatar kaas oo xadgudub ku ah madax banaanida dowlad iyo tan dowladeed ee waddanka Qatar laakiin waxa la isweydiiyaa qaaday marka weerarka ma Ruushka qaaday ma Iran baa qaaday ma Ukraine baa qaaday yaa qaaday weerarka waxa la yiri marka maxaa loogu xisi waayay Israa'iil waxa la yiri marka Mareykanka ayaa diiday laakiin wadamadii kale sida ku ogolaadeen baa la yiri marka hadduu diido iyo si kale meeshaan codeyn ma ahayn waa warmurtiyeedka marka Israa'iil cid walba ka hadlaysaa oo dhammaan xubnihii hadlay way cambaareynayaan inkastoo laakiin maxaabiista laga haysta Mareykanka lagu haysto 7 Oktoobar iyo sidoo kale weerarada Israa'iil lagu soo qaaday Hamas oo lagu tilmaamay urur argagixiso Mareykanka iyo Ingiriiska iyo kulli ay ka hadlayeen iyo sidoo kale Faransiiska oo leeyahay Hamas xitaa kuma yeelan doonto mustaqbalka Mareykanka wax maamul ah iyo tara ah laakiin haddana warmurtiyeedkii dhammaa ee la isku raacay ayaa waxa la leeyahay waxa laga reebay qodobka ugu muhiimsanaa waxa la cambaaraynayaa weerarka ayaa la yiri laakiin lama oran weerarka Israa'iil ay ku qaaday dalka Qatar ayaa la cambaaraynayaa horta qodobkaas waa qodob muhiim ah maxaa kaloo dhacay marka qodobad adag baa la jeediyay Algeria horta xalay Israa'iil miiska ayaa lagu jarjaray sidoo kale Pakistan baa hadashay Soomaaliya ayaynu hadashay oo imaan doonaa safiirka Soomaaliya dhammaan wadamada way hadleen laakiin Mareykanka gabadha wakiilka u ahayd iyada laftigeeda way hadashay waxay leedahay weerarkan ma aha mid ka turjumaya danaha Israa'iil iyo Mareykanka waana weerar aan ka xunnahay madaxweynaha Mareykankana arrintan uu ka hadlay wuu cadeeyay laakiin marnaba lama oran ama Mareykanku ma aysan oran waxaan cambaaraynaynaa weerarkii Israa'iil ay ku qaaday waddanka Qatar Israa'iil marka aan eegno marka safiirka Israa'iil ayaa asna ka hadlay fadhiga ayadoo la fadhiyo oo laga hadlayo dhibaatadii ay Israa'iil geysatay ayuu xalay mar kale wuxuu ku celiyay in ay weerari doonaan meel walba oo Hamas ay ku sugan tahay Qatarna ay ku jirto safiir ra'iisul wasaaraha Qatar oo shirka yimid indhuhu taagtaaga laftigiisa waxyaalaha uu yiri wakiilka Israa'iil waxa kamid ahaa Usaama bin Laden waxa lagu dilay Pakistan muxuu galo u cambaareen waay adduunyada maxay u cambaareen weey anaguna saas kala sameynayna wuxuu kaloo yiri wadamada Faransiiska iyo Ingiriiskuba wadamo kala duwan bay weerareen Faransiisku soo qaatay Mali Niger iyo Burkina Faso wuxuu yiri waxay ku beegsadeen sida hadalku uu yiri koox argagixis ah Syria iyo Iraq wuxuu yiri Faransiiska Mareykanka iyo Ingiriisku intuba sidaas oo kale ayay ku weerareen wax uu ku tilmaamay argagixiso marka wuxuu yiri maxaa aniga noo diidaya in Hamas weerarno maalinta Axadda ah iyo maalinta Isniinta ah shirka ka dhici doona magaalada Dooxa isku imaan doonaan wadamada muslimiinta iyo Carabta ayaa la sugi doonaa wixii ka soo baxa laakiin xalay golaha ammaanka wax ka soo baxay oo Israa'iil celin kara ma jiraan meeshii bay ka dhaaranaysaa Israa'iil waaye qodobka marka laga gudbo haddaba safiirka Soomaaliya Abuukar Cismaan Baalle ayaa waxa uu jeediyay khudbad aad u adkay isla markaasna la sheegay inay ahayd khudbad Israa'iil si weyn ay ula yaabtay haddaba aynu markaasi eegno hadaladii halkaasi uu ka jeediyay safiirka Soomaaliya Abuukar Cismaan Baalle Mr. President, mudane madaxweyne the Israeli airstrikes on residential areas in Doha weerarka Israa'iil ay ku qaaday goobaha dadka rayidka ay degan yihiin ee magaalada Doha the capital of Qatar caasimada Qatar
on September 9th sagaalkii bishii Sebtembar marks a grave and perilous escalation. wuxuu hoosta ka xariiqayaa xaalad adag oo xaaladda looga sii darayo oo aad u foolxun. It has far-reaching consequence wuxuuna leeyahay saameyn iyo cawaaqib aad u foolxun, not only for the countries directly involved but for the entire region and beyond. ma ahan oo keliya wadamada ku lugta leh, laakiin gobolka iyo in ka shisheysaba ayuu saameyn ku yeelanayaa weerarkaasi. We unequivocally condemn this brazen act of aggression waxaan si adag oo cad aan u cabaaraynaynaa weerarkan gardarrada ah, which is flagrant violation of Qatar's sovereignty kaasi oo xadgudub ku ah madax banaanida dalka Qatar and territorial integrity iyo madax banaanideeda dhuleed, and risk the destabilizing an already fragile region. isla markaasna uga sii dari kara qatarna ku ah gobol mar horeba xasarad ay ka aloosanayd. Such actions are in ficilka caynkaasi oo kale ah direct defiance of the core principles enshrined in the United Nations Charter, notably Article 2 wuxuu sidoo kale ku yahay xadgudub kana hor imaanaya xeerka qaramada midoobay, si gaar ah qodobka 2 paragraph 4, which baaragraafka 4 kaasi oo prohibits mamnuucaya the threat or use of force against any state's territorial integrity in xoog iyo awood loo isticmaalo waddan kasta oo madax bannaan or political independence. oo siyaasadiisuna madax bannaan tahay. Somalia stands in solidarity Soomaaliya waxay garab taagan tahay with the sisterly state of Qatar waddanka ay walaalaha yihiin ee Qatar, and supports its right to take all necessary measures waxayna taageeraysaa in ay qaado tilaabo kasta oo ay ku difaacayso to safeguard its sovereignty kuna ilaalinayso madax bannaanideeda and security. iyo amnigeeda. Our delegation extends its deepest condolence ergadayadu waxay tacsi u dirayaan to the government and people of Qatar dowladda iyo dadka waddanka Qatar for the loss of lives and dadka ku geeriyooday, wishes a speedy recovery to all injured. isla markaasna waxay u rajeynaysaa inay si degdeg ah ku soo caafimaadaan kuwa ku dhaawacmay weerarkaas. This attack by Israel on a weerarkaasi Israa'iil ay qaaday residential area oo ay ku qaaday goobaha dadka rayidka ay degan yihiin, housing embassies and schools meelahaasi oo ay ku yaalaan safaarado iyo weliba iskuullo, shows the blatant disregard for human life. wuxuu caddaynayaa inaysan qiimo u lahayn nolosha bini aadamka. Mr. President, mudane madaxweyne, these consequences are not merely coincidence. arrintani ma ahan mid ku timid si aan kula talgal ahayn. Israel's systematic expansion of the conflict zone from Gaza to Lebanon qorshaha Israa'iil ee ay ku ballaarinayso dagaalka oo ka bilaabanaya Gaza ilaa iyo Lebanon, then to Iran, Syria, Yemen, and now kadibna u sii gudbay Iran, Syria iyo Yemen, haatanna Qatar lagu qaaday. Qatar is a deliberate strategy. waa istiraatiijiyad cad oo ku talagala. This military strike unfolded weerarkan military wuxuu hoosta ka xariiqayaa ama uu muujinayaa when negotiators engaged in ama wuxuu dhacay iyadoo wada xaajoodiyaashu ay ku jiraan talks over the US-backed ceasefire proposal. wada hadallo ku aadan hindisihii Maraykanku uu soo gudbiyey ee xabad joojinta. It was aimed at undermining the ongoing mediation efforts. waxaana ujeedadiisu ay ahayd in lagu carqaladeeyo qorshayaasha socda iyo wada xaajoodka in the conflict in Gaza ee lagu doonayo in lagu xalliyo colaadda ka aloosan Maraykanka Gaza, driving and for immediate and unconditional ceasefire, taasi oo u baahan in si degdeg ah loo helo xal waara iyo xabad joojin degdeg ah. the release of all arbitrarily detained, including those whom we have heard the iyo in la sii daayo dadka la haysto, kuwaasi oo qaar ka mid ah pleas of their loved ones in kuwaasi this oo chamber.
qaar ka mid ah dadkii jeclaa aynu codadkooda ka maqalnay golahan An unhindered humanitarian access to isla markaasna si aan hakad lahayn loogu ogolaado marinka Gaza in gargaarku u gudbo the civilian population, mainly women and children, suffering from the IBC's declared man-made famine by Israel. taasi oo ku socota ama gargaarkaasi oo ku socda dadka rayidka si gaar ah haweenka iyo carruurta ku dhibaatoonaya lana macaluulaya sida warbixinta lagu sheegay hay'adda IBC ee marinka Gazana kaga dhawaaqday inay ka jirto macaluul daran oo gacan ku samaysa oo Israa'iil ay ka dambayso. History has shown that taariikhdu waxay ina tusaysaa ama ina baraysaa every escalation and xiisad kasta oo laga sii daro military attack only dims iyo ficil kasta oo military in uu majaxaabinayo already fragile hope for peace in the Middle East. xaalad kasta oo la xiriirta in markaa wax laga qabto ama rajadii ku aadanayd in la helo xal waara oo ku aadan dhibaatada ka jirta gobolka bariga dhexe. We call on all parties to exercise waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan restraint and avoid further escalation ayna ka fogaadaan in xaaladda looga sii daro that will worsen the suffering and instability in the region. taasi oo uga sii dari karta xaaladda gobolka. Qatar's role as mediator in seeking to end this conflict doorka Qatar ee ahaa in la dhammaystiro ama la dhammeeyo colaadan has been invaluable and waxay ahayd mid muhiim ah deserves recognition, not retaliation. waxaana ahayd in la aqoonsado doorkaas laakiin ma ahayn in la weeraro ama laga arguto. Attacking those who are actively working to bring peace in la weerara kuwa sida dhabta ah ama sida firfircoon uga shaqaynaya in la helo nabad to the long-standing conflict lagu xalinayo colaadan dabada dheeraatay in the occupied Palestinian land ee ka jirta dhulalka la haysta ee Falastiiniyiinta undermines the very goals we all waxay majaxaabinaysaa ama caqabad ku noqonaysaa dhammaan ujeedooyinka aynu leenahay. share. The Security Council bears a clear responsibility golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa saaran mas'uuliyad cad to uphold international peace and security, oo ah inay ilaaliyaan amniga iyo nabadda caalamka. to remain silent or inactive in the face of this brazen violation of the sovereignty will be to reduce international law to a mere suggestion, subject to the will of the aggressors. in golaha ammaanka uu ka aamuso ama uu gacmaha ka laabto oo uusan waxba ficil ka qaadin xaaladdan waxay noqon kartaa mid uga sii daraysa xaaladda isla markaasna dhiiri gelin karta cidda gardarrada wadda. We cannot allow these actions to continue or ma ogolaan karno in ficilada caynkana ay sii socdaan become an accepted practice. isla markaas ay noqdaan waxa la aqbalo. We call on all council members waxaan ugu baaqaynaa dhammaan xubnaha golaha to unite with determination inay u midoobaan iyagoo go'aan leh to immediately condemn this inay si degdeg ah u cambaareeyaan aggression and renew efforts weerarkan isla markaasna dib loo soo cusboonaysiiyo ama dib loo for a bilaabo dialogue and diplomacy without wada hadallada iyo diblomaasiyadda delay. iyadoo aan daahis lahayn. True and lasting peace in Middle East nabad dhab ah oo waarta oo ka dhacda gobolka bariga dhexe demands confronting the well-known root causes of perpetual instability in accordance with international law and its covenants. waxay u baahan tahay in la wajaho waxyaabaha aasaaska u ah dhibaatadaasi iyadoo lagu xalinayo in loo maro xeerarka caalamiga ah. To conclude, Mr. President, mudane madaxweyne waxaan ku soo gabagabeynayaa Somalia reaffirms its unwavering solidarity Soomaaliya waxay mar kale ku celinaysaa si aan la laabad lahayn taageerada iyo garab istaagga ay u hayso with the people of Qatar dadka Qatar and joins the international community waxayna ku biiraysaa bulshada caalamka in demanding a swift return to diplomacy
dalabka ku aadan in si degdeg ah loo soo celiyo diblomaasiyaddii and adherence to international legal norms and the principles enshrined in the United Nations Charter. isla markaasna ku qotanta oo lagu dhaqmo qawaaniinta caalamiga ah iyo xeerarka qaramada midoobay. I thank you. waa mahadsan tahay mudane madaxweyne. I thank the representative of Somalia for the statement. I now give the floor. waa mahadsan yahay wakiilka Soomaaliya oo jeedinayay khudbadaasi ayuu yiri madaxweynaha bishan Koonfur Afrika oo ah wakiilka ama danjiraha dawladda Kuuriyada Koonfureed u fadhiya qaramada midoobay. waayahay haddaba halkaas waxaa ka muuqatay Soomaaliya in aan si aan gabashanahayn u taageertay dalka Qatar isla markaasna ay ka hadashay dhibaatada arrintan ay dhalin karto gobolkana ka dhalin karto iyo waliba sida loogu baahan yahay arrinta in xal degdeg ah loo helo. waxaana la sheegay in Soomaaliya waliba ay aad iyo aad uga hadal kulanayd wadamadii kale ee goobta ka hadlay marka laga tago 15 wadan ee xubnaha ka golaha ammaanka ee qaramada midoobay. waxaa iyaguna sidoo kale goobjoog ka ah oo khudbado jeediyay wakiilo ka socday Jordan, Iraq, sidoo kale Turkiga iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Qatar oo isagana lagu marti qaaday goobta. wahagaag wixii wararhay arrimahaasi ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo. inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xurashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir. aynu barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa jimco wanaagsan nabadgelyo. siimoodi dahablaha ugu weyn geeska afrika haddii aad samayso wacan dahab aad sugayso oo saadaalinaysay singabuuri iyo saf baxrayna iyo hindi noocyada u sarreeya oo si wacan loo naqshadeeyey waxaad ka helaysaa xarunta siimoodi waa dahablaha ugu weyn geeska afrika. dahabyada uu iibinaya waxaa ka mid ah baxrayn, singabuuri, hindi designs waxaana aad ka helaysaa jumlo iyo tafaariikhba waxaana uu xarumo ku leeyahay Dubai iyo Hargeysa. faahfaahin dheeri ah waxa aad kala xiriirtaa wadasabyada Hargeysa iyo Dubai ee aad ku aragto shaashada. Macrifa Academy saldhigii quraanka iyo suubanay diinteenna siradii rasuulka iyo axaadiista sugan iyo saxnaanshaha caqiidada halka aan ka sugayno si wacan noo barayso saldhigii islaamka waa Macrifa Academy oo sahal kuu bari doonto online kuugu saxayso saacad walba aad heli doonto ee sidaas haatan ogowo Macrifa saaxiib laahow Macrifa Academy. akaademiyadda Macrifa waxay bixisaa casharada quraanka kariimka axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam sirada rasuulka caqiidada higaada luqadda carabiga waxaana ay gaar la tahay Macrifa Academy. casharadu waxa ay ku baxayaan 3 luqadood oo kala ah Soomaali, Arabic iyo English. ku baro quraanka iyo culumta shariicada islaamka adigoo gurigaaga jooga. faahfaahin dheeri ah la xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda.